shirweynaha dooda qaran ee joojinta iyo la dagaalanka eegashada ama qishka imtixaanaadka shahaadiga ee qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo ka qabsoomay Hotel Mansour ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ka soo qayb galay xubno ka tirsan golaha wasiirada Soomaaliland agaasimayaal guud agaasimo waxaadiyada wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare xubno ka mid ah aqoon-yahanka iyo professorada kala duwan ee dalka Soomaaliland وورينا مدرسة سوحة الله كوبن كتشدي أفيانك جودة وزارة وحبرشة يتعلن سريع عبد الله إبراهيم حاج حسن وقام مهن غيب بهوين تكلدون يكسر غيب قشي كلن كاسي أجسمه جودة وزارة وحبرشة يتعلن سريع بروفيسور عبد علي جامع أي فهي وجدة شركة سوء دارين هاي شركة وجدة سوء هاي هذان توصوا عبارة إن aanu isugu yeedhno dadka mutacalimiinta ama aqoonyahanka si aanu ugala tashano sidii qishka ama eegashada imtixaanada shahaadiga looga wada tashan lahaa marka anagu waxaan ku talagalay inaanu soo bandhigno wixii ilaa imika aanu ka doodnay wixii ka soo baxay ma garanaysaa shirarkayagii iyo doodahayagii kadibna wixii aad ku daraysaan idinku aad ku dartaan ما بدي شيء كرو لكن وحيوان كم سيء واحد كبيرة لما أن موبيلات واحد ممنوع إلا لا يماتوا قواها امتحان أنا أقول هذا يعرف وزارة وحويا وحنو شيءنا لما تيجي يوال وممنوع لما نقول إلا لا يماتوا قواها امتحان هذا الشهادة على قط هذا يوم موبيلات عندي لا تماتنا وحيس واجهيا شر حيس واجهيا بليس كاشتغل كده خليه وحي تبتدر ولا تطلب طلبات الدنيا الشيء وحوية نتعلم شغله وحي لو رجع توقع عندنا وصفية ولا جوجي يبقى لقى بلابه معموله أريتها وحربي يجري وسكن صوف inta si kadibna gudoomiyaha xafiiska imtixaanaadka qaranka Daawud Axmed Faarax ayaa ku dheeraaday heerarkii kala duwanaa oo soo maray xafiiska imtixaanaadka qaranka iyo dhibta faraha badan ee ka haysata qishka maanta daayarta ku jirta dugsiyada dalka aniga xusuus gaar ah iyo farxad gaar ah intii ii tahay way muddo badan baan keligay ka qayliyay oo wixii ka dambeeyay 2009 laga soo bilaabay ilaa 2010 waxa uu isu soo tareeyay in badan baan runtii arrintaa ka hadlaynay xafiiska imtixaanka ka waraysan dalalkan jaarka in badan bay imtixaanaadku baxaan in badan baa lagu celiyaa dawladda Itoobiya qoraymaka imtixaankii ku jiraan 10 maalmood wax internet kama shaqeeyay dalka Itoobiya iyagoo danaynaya imtixaanaadka inagu laakiin danyar baynu iska ahayn dawladdu marka taroosho ma laho waa private baare muddo badan oo imika sana waa qaydinay mushkiladii markay naga soo qoratay wasaaradda aad waxaan aad ugu hambalyeynaya wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo agaasimaha guud oo noqday mas'uuliyiintii ugu horeysay ee u bareeray arrintan si toos ah loo galo runtii aad baan ugu hambalyeynaya runtii muddo badan runtii waa ka qaylinay waxaad qarsataana uu ku qarsadaa waad ogtihiin oo xafiiska imtixaanaadka anaga imtixaanaadkayagii 3 bilood u diyaar garaysay yahay suuqna kuma jiro عيد هالشيء عيد أركتانا ما شفت عيد وحكي شيء دب كان هايستا وحوي من الله مركي امتحان كب حفرة حيرا لك كحفيز امتحان خان وجوابها امتحانات كتبوه وصورة فايسة كي إيراني هو كعن قرو مثل نقول يا عزومة جارس وصل ما يسي أو دبوا الله مركي دبوا كلا قاعدة عيد يسبل لك بحيب ومكان نقول أنت عكس هذا السؤال كنت تسكت بالدليل وزير الدولة وزارة وحبرشة يتعلن سري محمد حاج آذن علمي يسدو كله وزير الدولة وزارة عدالة خضر أحمد ديرية أيانا كورمي سيدا أميم كوتهاي إلا لدغ لما قشك يو حيابا وقر شيسن وزارة وحبرشة يتعلن وزير كعسوب وزارة بوسا يسكارسين تسومال لاندوينتا مدحوينها جمهورية سومال أمغا عبي مصطفى موسى أبرار يسنة المامي وزارة دودو إكاهو القلي دونتو sidii loola dagaalami lahaa aaladda tiknoolajiyadda ee lagu tabiyo qishka qaybihiisa kala duwan wasiirka wasaaradda waxbarashada iyo tacliin sare mudane Cabdullaahi Ibraahim Habane ayaa isna tilmaamay in loo baahan yahay in maanta la xoojiyo waxbarashada dhabta ah si loo gaadho hanka iyo himilada qaranku uu leeyahay arrinta ku saabsan
maanta ay wasaaraddu soo bandhigtay runaantii xafiiska imtixaanaadka iyo agaasimaha guud baa ka soo shaqeeyey mowduuc loo baahan yahay in laga wada hadlo oo wixii wasaaraddu ay tala moodayna aynu soo hordhigto wixii aad ku darasaan iyo wixii aad ka dhimasaanna la eego ayay wasaaradda ula muuqatay waana arrin muhiima weeyaan waxbarashadu dee waa asaaska nolosha haddii waxbarashadu naga qalloocantana bulshadoo dhan way qalloocsanaysaa xaqii weeyaan arday ku soo baxay qish ku soo baxay oo wasaab loogu shaqeeyey oo jaamacaddii galay oo jaamacaddiina qishay oo dabeedna halkan u soo baxay marka had iyo jeer anu aan ka hadlaya arrintaas dadka in badan baad tidhaahdaa waad ku yar talax tagtaa laakiin waxaan sheegayaa 60,000 oo arday baa jaamacadaha inooga soo baxay ilaa hadda 60,000 inan dee haddii ay aqoontu waxay soo barteen dhab tahay inamada kenyaatiga xafiisyada inooma joogeen dee aqoontaan soo barna hadday jirto meel kasta hay-ad kasta inaan kenyaatiga fadhiyaa marka waynu la tartami lahayn oo ka saari lahayn meesha inankiina markuu isku qaatay in wax soo barto wixii uu soo bartay in aanay ahayn wuxuu ka turjumayo oo ka muuqda waa kan ishallaynaya u sallaynaya isma hallayeen